mashkiladan dhulka taale waxa weeye camal la'aan niman camal haynin baa wuxuu camal ka dhiganayaa wax qof tamooti ku ah laba war bay iska daba baxay war waxay ku magac dhabeen hore walba nagu yiri oo wuxuu ahaa hadraawi dayacan yahay iyo koomu galay iyo wulita hadraawina warna waxa weeye kan ka dambeeyay waa dhintayba oo galigay dambe xalay buu dhintay labaduba waa been anna kuma oran dayiciisa la ciidan u sheegi lahaa ma jirto yaan uga warrami lahaa oranaya waa dayacan yahay hadduu dayacan yahay daanu isugayahay wax ka jira arrinta ma jiro TV-gi yidhina waan magaciisa waan aqaano waan ogahay waana ii yimi wuxuu igu yidhi hadraawi ka warran waxaan ku yidhi hadraawi daw xanuunsanaya xanuunkana isagaan beeri la weydiyo xanuunkaaga ka warran wuxuu yidhi noloshu ka mid yahay xanuunku waa qayb nolosha ka mid ah markaa hadraawi wuu xanuunsanayaa baan ku yidhi xanuun aan lahayn sakaraad lahayn baa haya oo imika wax sakaraad ma hayo hadraawi warkiisu waa intaa mana dhiman wax dheeraadana ma qabo sakaraad gooniyana ma qabo ilowga yara ku dhacay mooyaane wax dhibaato aan ma qabo waa la hayaa waa dayacanayay guriga burca lagu hayaa imankadana haddan ayaan la hadlayay si wanaagsan buu wanaagsan yahay abwaan hore walanwal ayaa sidoo kale telefishinka Star waxa uu wax ka weydiiyay in xaaladda caafimaad ee abwaan hadraawi uu ku sugan yahay hadda in dalka dibadiisa loo qaadayo iyo waxyaabaha qorshayaasha ee ay doonayaan in caafimaadkiisa wax looga qabto waxna uu sheegay in guud ahaan abwaanada waaweyn ee Soomaaliland ay iska kaashanayaan sidii mar kale caafimaadkiisa dalalka caalamka loogu diri lahaa markii hore dawladdiisa iyo wati la qaaday Jarmalka iyo Hindiya loo geeyay la qaaday labada waa la soo mariyay muddadii la yiri muddo markuu joogaba in la eegaba u baahan yahay ma hadday gaadhay waad aragtaan abwaanintii qaranka oo dhan baan maanta ku balansanahay qaybna imanka waa nagan fadhina qaybina waa soo socotaa ama bari baa qaarna dib loogu riixay oo aanu ilaa barita shirku waa soconaya waxaanu ka shiraynaa waxa weeye sida hadraawi noloshiisa wax looga qabanayo loo ilaalinayo yaanu ka shiraynaa wixii aanu dawladdu la tagayno iyo wixii aanu shacabku la tagayno iyo wixii aanu nagu qaban karaynaba diyaar baa loo yahay hadraawi ummadda oo dhan baa diyaar u ah wax anaga nagu koobanna ma jiraan wax ku soo kordhayna ma jiraan wixii lagu ogaa waxaan ahayn ma qabo abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ayaa hadda ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana sida walaalkii uu sheegay xaaladiisu tahay hadda mid wanaagsan maxamed faarax bile telefishinka Star Hargeysa